diyaarad u saarnaa taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo saraakiil kale ayaa lagu xanibay garoonka diyaaradaha ee magaalada Djibouti sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo Djibouti. Diyaaradda Turkish Airlines ee flightkeegu ahaa 686 oo uu saarnaa Fahad Yaasiin ayaa la sheegay in rakaabka diyaaradda loo sheegay in ay mar labaad dib ugu laabanayso Istanbul oo aanay maanta tegi doonin magaalada Muqdisho. diyaaradda oo ilaa 8 saacadood in ka badan joogtay garoonka Djibouti waxaa saarnaa Fahad Yaasiin oo maalinta berri ah Muqdisho kaga qayb geli lahaa shirka amniga qaranka oo uu farmaajo hore u shaaciyay. shirkaasi oo uu Fahad Yaasiin ka horjeedin lahaa warbixin la xidhiidha kiiska Igraan Tahliil. warbixintan oo uu hore ugu diiday ra'iisul wasaare Rooble, taasi oo keentay in uu ra'iisul wasaaruhu markii dambe xilka ka qaado. hase yeeshee oo markii dambe madaxweyne farmaajo kulan isugu yeedhay 18 Sebtembar in golaha amniga qaranku uu kulan isugu yimaado si uu Fahad Yaasiin warbixinta la xidhiidha kiiska Igraan Tahliil uga horjeediyo. madaxtooyada Soomaaliya ayaa goor dhaweyd xaqiijisay in agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo hadda ah la taliyaha amniga ee madaxweyne farmaajo lagu xanibay garoonka diyaaradaha ee Djibouti. qoraal ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu yidhi dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay aad uga xun tahay falka xadgudubka ku ah xuquuqda musaafiriinta iyo shuruucda caalamiga ah ee dowladda Djibouti ay garoonka diyaaradaha Djibouti ku xanibtay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo saraakiisha Soomaaliyeed ee wehelisa. qoraalka ayaa intaasi ku daray waxaan u sheegaynaa dowladda Djibouti in ay mas'uuliyiintaas u fududeyso safarkooda sidoo kalena ay mas'uul buuxa ka tahay wixii dhibaato ah ee soo gaadha amnigooda shakhsiga ah annaga oo ka xun faragelinta qaawan ee xadgudubka ku ah labada dowladood iyo labadooda shacab ee walaalaha ah. la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxa uu ka qayb gelayaa shirka amniga qaranka oo berri oo ay taariikhdu tahay 18 Sebtembar 2021 lagu qaban doono magaalada Muqdisho ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay Villa Soomaaliya. arrintan ayaa imanaysa iyada oo uu maanta baaqday duulimaadkii ay diyaaradda Turkish Airlines ku iman lahayd magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya taasi oo ku hakatay Djibouti. garoonka diyaaradaha ee aadan cadde waxaa saaka lagu arkayay ciidamo ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA waxayna taasi keentay shaki ku aadan in diyaaradda Turkish Airlines uu saaran yahay agaasimihii hore ee hay-addaasi Fahad Yaasiin. warar lagu kalsoonaan karo oo laga helayo saraakiisha garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa sheegaya in shirkadda Turkish Airlines ay ka cabsatay in uu qalalaasa ka dhasho duulimaadkeeda sidaasi darteedna ay baajisay duulimaadkeedii Muqdisho. dhanka kale ilaa wareedyo ka tirsan laamaha amniga Soomaaliya oo diiday in magacooga la sheego ayaa VOA-da u sheegay in laamaha amniga ee Soomaaliya ay amreen in Fahad Yaasiin aanay diyaaraddu keenin Muqdisho waxayna ku eedeeyeen inuu Muqdisho ka waday abaabul ciidan iyo inuu khalkhal gelinayo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. dhinaca kalena ilaa wareedyo lagu kalsoon yahay oo ku sugan Djibouti ayaa isla VOA-da u sheegay in Fahad Yaasiin oo ay la socdaan ilaa 40 qof oo ay siday diyaaradda Turkish Airlines kuwaasi oo ku sii jeeda Muqdisho hase yeeshee ay diyaaraddu heshay amar ah inaysan rakaabkaasi iman karin Muqdisho. sargaal ka tirsan Djibouti oo diiday in magaciisa la sheego sababta oo ah inaan loo ogolayn in uu warbaahinta la hadlo ayaa sheegay in Fahad Yaasiin iyo wafdiga la socday aanay u safri karin magaalada Muqdisho isla markaana ay ku celin doonaan halkii uu asal ahaan safarku ka soo bilowday oo ahaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.